toban qof ayaa ku dhimatay 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal maantay ka dhacay deegaanka Kaxandhaale ee gobolka Galgaduud kaasi oo u dhaxeeyay laba maleeshiya beelado oo walaalo ah. Dagaalka maleeshiyaadka ayaa salka ku haya aanooyin qabiil kadib markii dhowr jeer hore halkaasi ay ku dagaalameen labada maleeshiya beelada maantay dagaalamay, waxaana la sheegayaa in qasaare lixaad leh uu ka dhashay dagaalkaasi maantay ka dhacay deegaanka Kaxandhaale. dadka deegaanka ayaa sheegay in wali dagaalku uu socdo isla markaana ay baqdin badan ka muujiyeen in xaaladdu ay si xumaato. dhowr jeer hore ayaa dagaal noocan oo kala ah waxa uu ka dhacay deegaanka Kaxandhaale ee gobolka Galgaduud. ma jiraan wali wax war ah oo ka soo baxay maamulka Galmudug kaasi oo ku aadan inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalka ka soconaya deegaanka Kaxandhaale ee gobolka Galgaduud. Cumar Axmed Ibrahim, telefishinka caalamiga Somali News TV, magaalada Cadaado.